لكن waxaa jiro إن شاء الله تعالى إنه tilmaami doonaa arrimo mukhaalafaat ah oo mudooyinkan aad u soo kordhaya oo dadka lagu cilaajinayo oo in fara badan oo dadka wax cilaajiya kamid ah waxa weeyaan ay ku xadgudbayaan shariicadii iyo jideyntii nabiga kaleey salaatu wasalaam inoo jideeyay waxa kamid ah walaalayaal aanu taabanayna ilaa 5 qodob hadii ilaahay idmo qodobka koowaad aynu dadkaas aynu uga digayno ama aynu ka taabanayno waxa weeyaan xadgudubka lagu sameeynayo dadka xanuunsanaya ee la ildaran xanuunada xunxun ee haddana waxa weeyaan qaybo jin iyo sixir ay yihiin inay u furanayaan meelo ganacsi ah iyagoo ku xadgudbaya kaararka ay goosanayaan ama daweynta ay wax ku daweynayaan ama biyaha ay waxa weeyaan siinayaan ama saliida ay siinayaan qiimo aad u sareeya kaga raadinaya qofkaas bukaanka ah arintaasna shariicadeenu in badan ay qabto inaynu isku turno oo aynu isku naxariisano waxa kamid ah qodobka labaad waxa loo yaqaan darbiga ama garaaca dadka xanuunsanaya la garaacayo iyagoo loo adeegsanayo tuuba ama shaabuug qaybood koronto loo adeegsanayo la doonayo in khasab lagaga hadliyo arintaasna ma ahayn hadiyigi nabiga kaleey salaatu wasalaam iyo hadii diinteenu ay qabto midna ma aha waxa kamid ah walaalayaal akhdaada qodobka saddexaad taabanayno in waxa weeyaan dadka intii la isku soo ururiyo oo la isku keeno xanuunadoodii lagu shido sameecado lagu shido oo lagu qayliyo iyo waxyaabo fara badan oo aan quraan ba ahayn arintaas oo keenaysa dadkan oo iskugu jira mid xanuunkan qaba iyo mid aanan qabinba mid laga yaabo inuu dhiikar qabo oo laga yaabo marka sameecadaha lagu shido oo qofkaasi uu wareero oo uu dhaco in waxa weeyaan garaac loogu daro oo lagu dhibaateeyo oo la yiraahdo jin iyo sixir iyo ilba ka buuxda oo aanu ka saarayna arintaasina arin walaalayaal sharcigeenu qaba ma aha ay qofka hadii quraanka lagu akhrinayo waa in si mubaashar ah oo toos ah quraanka loogu tufo oo quraanka loogu akhriyo laakiin ummadan oo jamaca oo mid qaba iyo aan la shay baarin oo waxa ay qabaan aan la garanayn tiliis loo furo qof kasta halka galiya arinkaasi arin wanaagsan ma aha wana arin in badan khilaafaya ficilkii nabiga kaleey salaatu wasalaam waxa walaalayaal ugu daran oo isnaanu taabanayna qodobka afraad dhibaatooyinka in fara badan oo dadkan maanta isticmaalaya oo ku dhawaaqaya inay dadka quraan ku daweynayaan ay isticmaalayaan khalwada gabdhaha lala gooni noqonayo oo intii meel gaar ah loo furo la oranayo gabadhii waxa weeyaan iyadoo kaligeeda oo cid la socon lala gooni noqonayo diinteenuna ay reebtay ninku inuu gabadh ajnabi ah oo la gooni noqdo ama jirkeedii qayb kamid ahba la taabanayo taasna shariicadeena ka hor imaanaysa nabigeenu kaleey salaatu wasalaam oo ku tilmaamay la an yut'ina fi ra'si ahadikum bimakhiit min hadid midkiin in lagu mudo oo lagu tacniyo oo lagu dhufto mudac bir ka samaysan oo lagu mudo oo madaxa lagaga mudo ayaa waxa uga wanaagsan min an yamussa imra'atan la tahillu lah inuu isku taabto gabadh waxa weeyaan ajnabi ka ah oo gayaankiisa ah waxa uga fudud rasuulku tilmaamaya kaleey salaatu wasalaam isagoo madaxa lagaga mudo mudac lagaga mudo arintaasna qoliyaha mucaalijiinta ah in badan aynu arkayno baraha bulshada inay soo bandhigayaan dumaro qaybahood mariyuu ka dayacan yihiin qaybahood jirkooda ay hayaan qaybahood farahooda ay hayaan ay waxa weeyaan kaamiro la daba joogaan oo ilayhi waa sixirkii waa jinkii waa ishii ay ku dhawaaqayaan hadigaasina maaha hadii ay diinteenu inoo jideysay waana arinaynu uga digayno uga naseexaynayno inay ilaahay subxaanahu wa ta'ala uga cabsadaan waxa kamid ah waxan rushaynta ah oo magaaladeena Laascaanood isbuuca kan waxa haystay nin la yiraahdo rusheeye ninkaas oo dadkii
وسمي ماله لها ودو ومدفر بأمدي هالك كل شيء يا ومدي بويا لو قبنا يو وأدميس بويا لها يويل كمياشة لو استعمال يو يدت كمياشة لو رشين يو مركز سورة على ركتب بلا بالشدة لو صياعين يو كأنما واحد بمودسة بيرو لو رابين يو ودتكم مددها الرابن بايو مشركة بيها لقصينا يا حالدن أدق محيطها بيها وين أكسرنا وقت كشيلة كأنه كشرنا أدق ماشي أي مريان يحد قدوم كشيلة نحن ويدينا يشري فوصل $1 بالغ سير بيها $1 أي لاس عنود فوصل بيها كم رئيسة وحيننا أركينا إن دتكي لقو قرقنا يبيو بيها الله أعلم وحكشيلة يوحل لقو آخريي يوحي دتكو حيلين دتكو يجو ميلا كو أركين موج يوحي لي بيهني وعشر وحال أركيسان سوقي ودعت كو أركيسان بيدولية ودتك كتلا سنة ودتك لي وعشر مبنانت إلا جو يستاجو أرين تاسنا ولا ليا دي 10 يهين دي 10 كوحوها إلا هجاتيو 10 كوحوها إن سن دامسن دتك وحويان loogu akhriyo ama loogu tufo 10ku wuxuu ahaa in laga dhex saaro qashinka iyo magaalada dhexdeeda meesha uu degay waa buurta hiliblaha waad garanaysaan oo waa bartamihii magaalada waa garanaysaan oo ummadii oo dhan baa iimaanaysa waa garanaysaan oo qofka meesha maraya buuqa iyo gurxanka iyo waxa ka baxaya iyo qaylada iyo cabaadka iyo waxa meesha ka soconaya waa dhibaato aad u weyn dadka sidaas waxa weeyaan ay ku dhacayaan waxayna umada goor la wada sixray lama garanayo iyo goor umada waxa weeyaan la wada baabiye kulli hadda waxa mada wax kasta leeyahay waa sixir iyo illa leeyahay arintaas arin in waxa weeyaan saal lagu aado oo umadu xaaladaas ay sida ay ku dhex fariistaan wax banaan ma haduu 10 waxaas uu yahayna in suuqyadii lagu sii daayo biyo 10ku wuxuu leeyahay xurmo هذه القرآن لو قلت فبيه وإن بيهان حتى سولية العلماء وادينه ماله نجاسة إن لو قصير والدينه مال نظيفة بوبايه دم بفربضان أيام مركا هلك كذا لنا يا أرين كاسنا ولا ليال وأرين إنه كدقينه نكرينه ما يمانشرين مقالدنا ما يمانشرين هذا الإعلامي يروح لها بلا يحمل شوقية تذكر مركا ريلاس على سعام مال وحي هاي دين تعالوا ويا قانو وأهل الدين رشدة تندتك لغو رشينيو وارين ولا ليال أنو كدقينو وحويان وأيو دتك كانوا وحينو أركينا كوفر بدنا حنونا خطرها بقلان با وحدعي كرا إنا يمياشا كسوحان وهدنا لغو تشردلو وهدنا حالة دودو أي كوبا دينتان با سيدي كوفر بدن هوريو دعضيبا أما وحويان لغو عيشيو وقف كان وح إساقا خصب لليهي وحبانو كو حلينانا وحاول عليال كمدا أخطاء ذا كشير أريمان وحكمدا إن لا تعامله جنك نيكا روشيو ونيكي كل واقع يوري بلاه بالشدة لها أنو كورونا فيروس كان دوين يلا يصدر ما قرنا يوم جنكي وإعلامي يبقى كجب حي الله أعلم لكن كل واحد شره حيابه بدن أودتك وحيابها وكل علاجي أي شرو تعامل إلى معاملات شمنك أو حويان يسكون موجيان شمنك أو يكون الشقيستان شمنك يكون الشقيستان أو يكون الشقيستان يان سيدي أمدة وحويان لودي بلها دتك وحويان مسلمين تاع وحاها بون يجو إن القرآن كيسكود ويا نكاس هلك أدقي هدي علمنا حتى ميل أدقي وحاها بون إنه مجال هذا إسكجبحه oo meel geesa uu la tago oo wadaacdi iyo dadkii dadba waxay ka cabanayeen dad fara badan oo adeegyo loo diray oo dumar qaybahood leh inay meeshii ku dhaceen in qaybo wax lagu kala iibsan waayay arintaas waxa weeyaan waa arin aad u dhibaato leh arinta kale walaa ka hadlayno waxaan la yiraahdo jinka ama sixirka xanuuno jira waayihiin laakiin xanuunadan waxa ku jira waxa weeyaan buunbuunin aad u badan waxaanu ka digaynaa oo dadka aynu uga digaynaa arrimaha jamaca ah iyo xanuunada jira iyo xaaladda adeega lagu jiro inay dadku iska ilaaliyaan oo dadku iyagu quraanka isku akhriyaan quraanka adigu isku akhri qul a'udhu birabbil falaq iyo qul a'udhu bin nas waa taqaana
qul huwa allahu waa taqaanaa adigu isku akhri adigu waxaad aamintaa qur'aanku inuu yahay daawo oo adigu isku akhriyi kartid oo adigu isku daweyn kartid adigu caqiidadaada hagaaji oo cidda wax daweysay dawada bixisay waa Allah cid kale oo dawo bixin kartaay ma jirto hadday dhibaato ku taabato cidda dhibaatada ka faydi kartaay waa Allah isku day markaa adiga inaad si toos ah ilaahay subxaanahu wa ta'ala aad la xidhiidho ilaahay si toos aad u barido ilaahay kalaamkiisa si toos aad iskugu akhrido arintaas waa arin dadka xanuunsanaya inta badan waxa ka cabanaya aynu ku leenahay waxa la doonayaa walaalayaal quraanka in guryaha lagu shido oo quraanku dadku guryahooda ay ku shitaan oo nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo tilmaamayaa shaydaanku wuxuu ka cararaa guriga lagu akhriyo suuratul baqara guriga lagu akhriyo shaydaanku waa ka cararaa guryaheena aynu quraanka ku shidno dadka muslimiinta ay cadow badan bay leeyihiin cadawyadan qayb waa la iskugu soo maraya waa la iskugu soo kaashaysanaya adigu markaa isku day inaad adigu isdaawayso adigu quraanka isku akhrido adigu gurigaaga waxa weeye ku sugnaato adkaarta aad laazimto ducooyinka nabiga calayhi salaatu wasalaam aad laazimto dadka waxyaabaha ku shaqaysanayana iyagana waxa weeyaan waa inay waxyaabaha diintu aysan ogolayn gabdhaha ajaanibta ah ee la qaaqaawinayo gabdhaha lala daba joogo kaamarada dadka la leeyahay khasabka ku hadle lagu qabanayo tifiyada tan kale jinku sidoo u badan yahay run ma sheego ama waxaan sixirka leeyahay run ma sheego waxa laga yaabaa qofkan ay isku dhow yihiin oo sadiiqiisa ah oo saaxiibkiisa ah inuu ku leeyahay uu ku sixra inuu ku leeyahay waa isaga markiiba markaa qofka awalba isagoo bukay marka lagu yaabo waa sixran tahay oo la boodayo waa sixrahan oo yaa ku sixray waa la ii sheegay oo yaa ku sheegay waan ogahay marka la isku dirayo dadkii muslimiinta dhexdooda boqolkiiba 99 waa been in la wareystana sharciyan ma banaana oo la dhaho qof kala dhaho wariyaa kugu jira xaguu sixirku ku jira xaguu yaala kaalino wax banaan ma waxaad arkaysaa baraha bulshada nimanka rusheeyooyinka qaybood inay dadka qaybood bira ka matajinayaan waa inda sarcaad wax inda sarcaad wax xaqiiqo ah maaha bal qof nool oo bir soo matagaya oo la birtaas waa kan sixirkiyo haye soo matag waa kan qof nool oo goodaado ka soo dhacaso oo leeyahay waa kan goornay goodaado gashay xagaysa ku noolay birahan daabka ay xagay ku jireen waxa markaa ku muuqanaya waxani fiilmadii la jili jiray ee nasr caadiga inay yihiin waxaanu leenahay walaalayaal ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu ka cabsano diinteena aynu baranno diinteena aynu ku dhaqanno diinteena aynu intay cid kale wax weeyaan ay inoogu furo lahayd meelo inagu aynu isku daweyno oo adigu aamin inaad isku daweyn karto adigu isku akhri adigu isku aamin qof kugu dhow igu akhride dumarku iyagu ha isku akhriyeen laakiin arintatan waa arinaynu ka digano in laga digtoonaado ayaynu arintaas waxa weeyaan dadka reer laascaanood aynu uga diganaa